السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناسا صاحبيال halkan iga dambaysa waxaan filayaa dad kastoo muuqeeda yaqaan imika inay garanayaan waana meel taariikh weyn leh qof kastoo Istanbul yimaadana uu imika xiiseynayaba inuu booqdo berigii hore waxaan mar aan halkan imaaday aad maartay indhaha ula raacay masaajidkan ka soo horjeeda halkan oo iga dambaysa oo ah Sofia oo isaguna ah Suldaan Axmed balse hadda dadku waxay aad u soo booqdaan oo yimaadaan masaajidka Sofia isbedel kala duwan ayuu soo maray balse markii ugu dambeysay ee masaajidka laga dhigay arintaas waxay si weyn u soo jeedatay guud ahaan indhaha bulshada muslimiinta iyo waliba dadka kale ee caalamka ku nool oo si weyn u faaleeyay aragtiyo kala duwan ka dhiibtay masaajidkan Sofia waxa dhawaan salaada subax ku tujiyay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed haddaba sheekhu see u arkaa masaajidkan iyo taariikhdiisa maxay uga dhigneed inuu tujiyo masaajidkan oo lagu maamuuso inuu salaad subax bulshada halkan ku tujiyo xaqiiqatan de masjidkaas horta waa masjid taariikh weyn leh taariikhdiisa iyo wixii dhacday iyo sidee wax u dhaceen caalamka dhan baa la socda markii wadankan ay muslimiintu ay furteen Qustantiniya loo oran jiray ayaa masjid laga dhigay isagoo markii hore kaniisad ahaa waliba sida de taariikhdu ay qorayso al-Imam al-Fatih Sultan al-Fatih rahimahullah uu ka ibsaday qoladii iska lahayd qasab uga muusan qaadanin uu ka ibsaday kadibna masjid buu ka dhigay masjid buu waligii uu soo ahaa ilaa laga soo gaaro taariikhdu markii ay ahayd 1935 oo ninkii wadankan Kemal Atatürk la oran jiray jamhuuriyadda Turkiga ka dhigay ayaa u bedelay matxaf oo masjidkii waa laga bedelay waxa laga dhigay matxaf baa laga dhigay meel dadku ay daawadaan anigu isagoo ay meeshu ay matxaf tahay baan nimid hadda ka hor oo masjidkii ka masjid ahaan calaamaadkiisii iyo aayadihii ku qornaa iyo magacii yani nabiga iyo Abubakar iyo Umar iyo Ali iyo wixii oo dhan ay ku wada qoran yihiin dhinacna wixii kaniisad ahaan jiray ay ku gees kaga qoran yihiin laakiin iska matxaf oo dadku iska daawanayo oo waqtiga salaada aan salaada lagu tukanaynin baan anigu mar imid tabcan markaasna shucuurkaygu shucuur aad aan uga danqaday bay ahaydoo de meeshan oo masjid ahaan jirtay oo waliba masjidkii uu furay ninka furtay dhulka kan Sultan al-Fatih oo hadda maanta matxaf noqday shucuur aad iyo aad yani danqasho ay ku jirto ayaan markaa aan dareensanaa markaa iyada ahayn aan imid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray bacda 86 sano kadib in ilaahay masjid dib ugu soo celiyo bifadli illaahi tacaala awalan وبفضل دولة هذا جوكتا هلكن جوكتا ايو قانون كي مرين ما ايسان قصب ايو قرد الضحك سمينين قانون كعادي هي ادونك او كلا دقمي مرين محاكم bay tageen arintan in badan baa laga soo shaqeeyay xaqii baa dib loogu soo celiyay masjid baa laga dhigay isagoo masjida ilaahay subxaanahu wa tacaala dib ii keenay anigu runtii ka shakhsi ahaan markaan run ahaan isaga kiin waramo oo ma saacinin mana yani ku dadaalin xariisna kuma ahayn in aan maqaamka aan istaago oo dadka aan tujiyo أنا سو أركي إن أنا أريتها أنا أقل من أنا إيش موقت عيدات كل ما أوجا أنا إيش أذكرنا هي مال دتك وين أي استاجين إن أنا وأنا استاجو وإسكال يرى ولكن إلى حق شيء كتمت ولا يوضل بي ويعني وشبه ولا يوقس حل إلى ولا وتجنيسا أنا ونسيدي وإلهي وفجي الحمد لله صلاة الصبح بان هذا يعني
dee salaada waxaan u malaynaya waa dhagaysateen videogana waa daawateen video baa laga duubay waa la nashriyey kullayba ragcaddii hore ma aanan si fiican uma deganayno rahbada meesha iyo maqaamka weyn iyo xogay laakiin ragcaddii dambaan adigu aad iskala qabsaday alxamdulilah shucuur aad iyo aad dareen aan tilmaami karin baan yaa xaqiiqatan aan dareensanaa oo ay ugu weyn tahay farxad weyn oo aan xuduud lahayn meesha iyada ahayd masjid dib loogu soo celiyey bacda dulm tawiil sanawaad fara badan oo dikrigii ilaahay laga joojiyey oo salaaddii laga joojiyey marka aad iyo aad baan farxaddaas aan subaxa aan u dareemay lilaahi alxamdu walminna oo aan ku faraxsanaa muslimiintuna aad iyo aad ugu farxeen waxaa insha allah alxamdulilah uma alxamdulilah aan leeyahan ilaahay ku mahadinayaa in ay iyaguba igu dhaheen dadkuna ii sheegeen imaam tujiye oo aan wadankan u dhalan oon turki ahayn qofkii ugu horreeyey inaan ahaa alxamdulilah dalika fadlullahi tacaala marka haddaad iga weydiisay shucuurkayga dee shucuur waxa weeye aanan sifayn karin oo farxaddaas iyo ma garanaysaa iyo intisaarka iyo guushaas ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta uu soo hoyiyey ay ku farxeen hanu ku farxeen baan leenahay inta ka naxday ama nacabna waxaanu leenahay qul muutuu bigaydikum ina allaha caliimun bidaati suduuri laakiin muslim kasta wuu ku farxay aad iyo aad iyo aad wuuna qalbigiisu ugu diiray waxa weeye arrin aad iyo aad aan ugu faraxsanaa wey lillahi alxamdu walminna insha allah waxaan rajaynayaa marar kaloon imaadana in ilaahay subxaanahu watacaala oo i waafajiyo insha allah aan meesha aan ka tujiyo wallahu waliyu tawfiiq insha allah wasala allah calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasalam warbixintan waxaa idiin soo jeedinayay anigu axmed darwiisha tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal ammaano allah